السلام عليكم أصحابتا وردك دقاه ميان لها نينكي ترامها وحاوليه هشيس حبة جوجينا هيا لكلا دحدقي ودمضة إيران إيا إسرائيل waxaan ogeyn caawa in xarunta ugu weyn ee saldhigga militariga ee Mareykanku ku leeyahay bariga dhexe oo ku taala caasimadda wadanka Qatar ee Doha ee Al Udeyd la yiraahdo in ay Iran duqeysay walow Trump uu leeyahay waa naloo sii sheegay oo waan ka gaashaamanay laakiin Trump ayaa bartiisa Truth Socialka qoraal aad u malayso in xoogaa muranna uu ku jiro qaabka uu soo qoray oo fahamkiisu uu adag yahay ayuu ku soo qoray bartiisa Truth Social ka hor intii uu soo qorin waxa uu yiri caalamku waxaan ugu hambalyeeynaa in la joogo xilligii nabadda kadibna waxa soo xigtay inuu ku soo qoray qoraal dheer oo ku leeyahay hambaliyo qof kasto waxa si buuxda ay ugu heshiiyeen wadamada Iran iyo Israa'iil in xabad joojin buuxda ay gaaraan ku dhawaad 6 saacadood kadib oo hadda laga bilaabo waa markii qoraalka soo qorayay oo ku dhawaad 3 saacadood Israa'iil iyo Iran waxa uu yiri xaaladda waa ay qaboojinayaan kadib marka ay horumar ka gaaraan mishinadooda ama howlgaladooda ugu dambeeyo macnaha wali wax isku turtuur miya dhiman masaxba joojinta hore ay ka dhaqan galaysaa meeshaasi muran ayaa ka jira 12 saacadood kadib marka xilligaasi la gaarana waxa uu leeyahay dagaalku waxa uu noqon doonaa mid si rasmi ah u dhamaaday Iran ayaa marka hore xabad joojinta bilaabi doonta waxaan ognahay Iran markii hore in duqeynta lagu bilaabay oo dagaalka Israa'iil bilowday laakiin hadda waxa uu leeyahay xabad joojinta waxa bilaabaysa Iran wuxuu yiri markaasi kadib 24 saacadood marka Iran xabad joojinta ay bilowdo dhinaca Israa'iil kama dhaqan galin macnaheedu waxay tahay Israa'iil waa ay duqeyn kartaa Iran marka 24 saacadood kadib ayaa waxa yiri waxa loo aqoonsan doonaa si rasmi ah in dagaalkii 12 maalmood uu dhamaaday caalamkuna wuu salaami doonaa marka waxa yiri inta marka mid kasta xabad joojintu ay jirto labada dhinac mid kasta waxa uu ahaan doonaa mid oo nabad ah isla markaana la is xusmeeyo mid walibana midka kale uu ka soo qaadayo in ay shaqeysay xabad joojintii macnaha waxa yiri waxaan jeclaan lahaa inaan u hambaleeyo labada wadan ee Iran iyo Israa'iil adkaysiga ay u yeesheen arrintan geesinimada iyo waliba dulqaadka ayraade in maskaxda ay ku soo gabagabeeyeen waxa loogu yeeray ayuu yiri dagaal